bismillaahi raxmaan iraxiim aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay iiraan markab ay leedahay ayaa gujis aan la garanaynin uu weeraray ruushka wuxuu aqoonsaday ciddii weerartay markabkiisii ku sugnaa biyaha mediteraneanka iiraanna waxay bartilmaamaysanaysaa xarumaha ugu muhiimsan ee isgaarsiinta ciidanka dowladda maraykanka maxaa soo kordhay waxaa la diiwaangeliyay duqayntii ugu badnayd iiraan inay ku garaacaysa dalalka khaliijka waxaa soo baxaya in mid ka mid a xarumaha korontada ee dalka isutaga imaaraadka carabta waa berigii maanta qarax uu haleelay kadib markii diyaarad daroonisa lagu weeraray xarunta lagu magacaabo al aweer power planti oo ku taala dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa dab uu qabsaday sida wararku ay sheegayaan waana mid ka mid a xarumaha ugu muhiimsan ee korontada dalkaasi imaaraadka sida wararku ay sheegayaan iiraan in ka badan 1400 oo weerar ayay geysatay oo diyaarado daroonisa iyo gantaalo loo adeegsaday inta ugu badanna waxaa lagu weeraray khaliijka waxaana soo baxaya kalabar weerarkaasi in lagu qaaday dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana la isweydiinayaa sababta ka dambaysa iiraan in sidaas ay u bartilmaamaysatay imaaraadka kuweyt iyo cumaan iyadoo dalalka kalena ay noqonayaan qatar iyo sacuudi arabiya sawirada dhanka satellite-kee lasoo qaadana waxay muujinayaan khasaaraha gaaray saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay dalalka khaliijka sida wararku ay sheegayaan iiraan waxay bartilmaamaysatay 7 saldhig oo dalalka carabta ku yaala inta ugu badanna waxay gantaalada ay ku dhaceen xarumaha nidaamka isgaarsiinta ee ciidanka maraykanka ee dalalka khaliijka telefishinka CNN ee dalka maraykanka ayaa soo bandhigay khasaaraha gaaray saldhigyada maraykanka ee ku yaalay baxrayn qatar sacuudiga kuweyt imaaraadka carabta iyo sidoo kale dalka jordan aad ayaa loo falanqeynayaa khasaaraha maraykanka ka soo gaaray diyaaradaha daroon ee ka imaanaya dhanka iyo dowladda iiraan ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan waxay goordhow duqaymo culus ay ka fuliyeen gudaha dalka ciraaq waxayna u badan tahay inay bartilmaamaysanayaan xarumaha gooni ugoosadka ee kooxaha kurdiyiinta xisbullah waxay duhurnimada maanta gantaaladii ugu badnaa dhankeeda ay ku garaacday gudaha israa'iil iyadoo taangiyada israa'iilna lagu arkay deegaano ka tirsan dhulka ee lubnaan gaar ahaan deegaanada dhinaca xadka dhaca dhanka iyo iiraan haddii aan eegno waxaa soo baxaya in duqaymo xoogan lagu garaacay dhismayaal ay dad shacab ay deganaayeen mid ka mid a xaafadaha ku yaala magaalada tehraan iyo xarumo kale oo ku yaala gudaha dalkaasi iiraan gobolka tabriis oo kale gantaallo ayaa ku dhacay brofesor u dhashay dalka shiinaha oo dhalashada kanada haysta waxa uu sheegay in haddii iiraan muddo 2 toddobaad ah ay weeraradan kusii wado dalalka khaliijka cunto la-aan iyo biyo la-aan ay ku dhici doonaan dalal badan oo khaliijka ah sidoo hadalka u dhigay brofesor jang shiang oo u dhashay dalka shiinaha wararka kale ee soo kordhay haddii aan eegno ruushka wuxuu aqoonsaday cidda bartilmaamaysatay mid ka mid a maraakiibtiisa shidaalka qaada ee ku sugnaa biyaha mediteraneanka markabkan waxaa la sheegay in horey cunaqabatayn ee u saarnayd ruushka wasaaradda gaashaandhigga qoraal ayay soo saartay waxaana qoraalka lagu sheegay in dowladda Ukraine ay ka dambeysay weerarka iyadoo adeegsatay dooni la sheegay inay tahay kuwa kaligood iskaxaynaya oo lagu bartilmaamaysaday markabkan muuqaal ayaa la soo bandhigay oo muujinaya markabka oo holcaya waxaana la sheegay markabkan inuu siday gaas dabiici ah waxa uu ka soo dhaqaaqay sida la sheegay dhanka iyo jasiiradda Malta oo qaaradda Yurub oo Talyaaniga hoos tagta waxaana uu socday mid ka mid ah dekedaha ku yaala gudaha dalka ruushka sida warbixinta lagu sheegay ruushka marka uu taas ka jawaabaya waxa uu bartilmaamaysaday xarumaha tamarta warshadaha iyo xarumihii logistikada ee dalkaasi Ukraine waxaad moodaa ruushka inta lagu mashquulsan yahay dagaalka Iiraan isaga inuu faa'iideysanayo sidaas oo kale Afghanistan iyo Pakistan xiisadoodii wali waa ay taagan tahay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka waxay sheegtay inay bartilmaamaysadeen xarumo dhowr ah oo dhanka tamarta oo ku yaala gudaha dalka Ukraine taasoo u muuqanaysa inay jawaab u tahay markabkii lagu weeraray xeebaha biyaha mediteraneanka dhinaca kale waxaa soo baxaya mid ka mid a maraakiibta dagaal ee dowladda Iiraan in waxyeelo la gaarsiiyey markabkan oo la sheegay inuu ka mid yahay maraakiibta ugu muhiimsan ee ciidamada badda ee dowladda Iiraan oo lagu magacaabo Iris Dena waxaa lagu weeraray sida la sheegay xeebaha dalka Sri Lanka wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay in gujis aanan la aqoonin cidda iskale markabkan uu bartilmaamaysaday xilli dagaal xoogan uu socda ayuu ku soo beegmay waa mid ka mid ah maraakiibta dagaal ee dowladda Iiraan in ka badan 78 badmaax ayaa la sheegay dhaawacyo inay soo gaareen 101 kale ayaa lagu waramayaa in la weysan yahay waxaana lagu waramayaa markabkan inuu ka mid ahaa kuwii ka qayb galay dhoolatusyo military oo maalmihii ugu dambeeyay ciidanka Iiraan ay sameynayeen inta dhoolatuskaasi lagu guda jiray ay qabti ku dhacday ama dagaalkii uu dhacay waxaana lagu waramayaa in hadda qaar ka mid ah shaqaalahaasi la badbaadiyay oo dowladda Sri Lanka gaar ahaan ciidanka badda ay badbaadiyeen ilaa 78 ilaa 79 ruux waxa la geeyay xarumaha caafimaadka ee ku yaala dalkaasi Sri Lanka 101 kalena waa la baadigoobaya waana la weysan yahay
markabkan la weeraray marka wuxuu ka tirsan yahay maraakiibta ciidanka badda ee dowladda Iiraan waxa uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee koonfurta ama aaga koonfureed ee dalka Iiraan ka howlgalayay inta badanna waxaa sidoo kale uu ka howlgalaa badweynta Hindiya si uu u ilaaliyo maraakiibta dowladda Iiraan iyo danaha dowladda Iiraan ee dhanka gobolka. howlgallada marka inta badan uu markabkan uu sameeyo waxaa qayb ka ahaa inuu ilaaliyo maraakiibta ganacsi ee dowladda Iiraan, inuu ka hortago burcadbadeedda isku dayaysa inay maraakiibta Iiraan ay weeraraan, iyo sidoo kale inuu muujiyo awoodda ciidanka badda ee dowladda Iiraan. sidaa daraaddeed marka waxaa la sheegay xeebaha Sri Lanka in lagu bartilmaameysaday, haddana faahfaahin lama hayo iyo cidda ka dambaysa mana jirto cid sheegatay, laakiin Israa'iil iyo Maraykanka ayaa dagaal xoogan kula jira dowladda Iiraan. dhinaca kale waxaa cabsi weyn laga qabaa qiimo koror weyn oo ku yimaada fuustada shidaalka ee Sacuudiga. waxaa lagu warramayaa maanta weerar kale oo culus in xarumihiisii tamarta ay la kulmeen, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegeen inay ka hortageen diyaarad drone oo lagu soo weeraray xarunta ugu weyn ee shidaalka soo saaraysa. haddana dhinaca kale waxaa lagu warramayaa in haamihii kaydka shidaalka ay buuxsameen maadaama shidaalka la soo saaray dal loo iibgeeyana uusan jirin. waxaa dhinaca kale laga baqaya marka qiimo koror inuu qiimihii shidaalka ku yimaado oo $150, $120 ilaa $100 uu gaaro haddii dagaalkan toddobaadyo kale uu sii socdo. hadda $83 ayuu marayaa. cabsida ugu weyn waxay tahay $125 ilaa $150 inuu gaaro. saameyn weynna waxay arrintan ku yeelan doontaa guud ahaan caalamka. mas-uul u hadlay dowladda Iiraan wuxuu yidhi ma aamini doono Maraykanka, lamana hadli doono. sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyey, mas-uulkan oo Cali Moxamed Mukhbaar lagu magacaabo oo ah sargaal sare oo ka tirsan la taliyayaasha ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan, wuxuu sacad u sheegay in wadahadal aysan ka qaybgeli doonin, isla markaana Maraykanka iyo Israa'iil aysan mar kale aamini doonin. Turkiga weerar ayuu la kulmay. waxaa lagu warramayaa in gaashaanbuurta NATO ay ka hortagtay gantaalo lagu weeraray dhanka iyo dowladda Turkiga iyo sidoo kale diyaarada daroonisa. waxaa Turkiga ku yaala mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Maraykanka uu leeyahay, oo xitaa hubkiisa nuclear-ka ayaa halkaasi yaala. saldhigga Incirlik lagu magacaabo. Turkiga waa mid ka mid ah dalalka ugu muhiimsan gaashaanbuurta NATO. tani waxay ka dhigan tahay marka NATO inay si toosa dagaalka ugu soo biirayso si loo difaaco danaha dowladda Turkiga. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Turkiga ayaa sheegtay in nidaam difaaciyeeda gaashaanbuurta NATO ay ka hortageen weerar dhanka Iiraan ka yimid oo gobolka Hatay ku wajahnaa, waxaana la sheegay gantaalo balastiig ah in lagu soo weeraray Turkiga si gaar ahaaneed gobolka Hatay, laakiin waa la difaacay sida qoraalka lagu sheegay. tani marka waxay ka dhigan tahay in dhanka Turkigana sheekada ay gaartay. aan kula wadaago macluumaad kale oo ku saabsan Turkiga iyo dagaalka Israa'iil ka dhexeeya ee dhanka sirdoonka. ma u malaynaysaa inay soo idlaatay sheekadii Bajriska ee lagu dhibaateeyay reer Lubnaan markii la beegsanayo xubnaha ugu sarreeya ee hoggaanka Xisbullah, taas oo dhaawacyo gaarsiisay dad shacab ah oo xitaa uu ka mid ahaa safiirkii dowladda Iiraan u fadhiya dalka Lubnaan? sheekadaasi weli ma aysan idlaanin. aan kula wadaago macluumaad sirdoon iyo sirdoonka dowladda Turkiga dagaalka kala dhexeeya kan Israa'iil. warar iyo xogo sirdoon oo isi soo taraya ayaa muujinaya in sirdoonka Israa'iil ay ka shaqeeyeen qorshe kale oo qatar badan kana qatar badan midkii hore. laakiin markaan ciyaartu kama dhacaynin gudaha Lubnaan, waxa kubadda la doonaya in lagu kala wareejiyo gudaha dalka Turkiga. waxaa la sheegay qorshuhu inuu ku salaysnaa nooc cusub oo xasuuq elektaroonig ah, kaasi oo ku dhisnaa qalab, shixnado iyo waxyaabaha qarxa oo si fog loo maamuli karayo. warbaahintu waxay baahisay cadeymo muujinaya muuqaalada sirdoonka dowladda Turkiga oo gacanta ku dhigay shabakad basaasiin ah oo howlahani ka shaqaynayay isla markaana qorsheynayay arrimo aad la yaabi doonto. qorshuhu wuxuu ahaa mid aad u qarsoon oo aanan ku dhisnayn hub muuqda, balse waxa la doonaya in lagu dhex qariyo silsiladaha sahayda teknolojiyadda. qorshahan oo la doonaya gudaha Turkiga weerar in looga geesto mustaqbalka marka la doonaya in la bartilmaameysado. laakiin laba arrin oo lama filaan ah ayaa dhacday. sirdoonka MIT ee dowladda Turkiga waxay ka war heleen dhaqdhaqaaqyadaasi, iyaga oo sida la sheegay si dhow ula socday shabakad la tuhunsanaa kadib howlgal sirdoon oo waqti dheer soo qaatay. waxaa la fashiliyey unug la sheegay inay ahaayeen kuwo lagu magacaabo Montim. waa shabakad la rumaysan yahay in la dhisay tan iyo sanadkii 2016. qorshaha lagu eedeeyay shabakadaasi wuxuu ahaa mid aad u xeel dheer. halkii hub laga soo gelin lahaa gudaha dalka Turkiga, waxay isku dayeen in ay soo geliyaan shirkadda teknolojiyadda, gaar ahaan kuwa lala xiriirinayo soo saaridda ama isku xirka telefoonada casriga ah. qaybo elektarooniga ayaa la sheegay in wax laga bedelay, waxaana lagu dhex qarxiyay qalab wax basaasa ama waxyaabo kale oo qarxi karaya mustaqbalka. sida la sheegay mararka qaarkood waxaa baytariyada lagu dhex qarxiyay qiyaastii 3 garaam oo waxyaabaha qarxa ah, taasi oo micnuhu yahay in qatartu ay ku qarsooneyd xitaa kartoonada alaabaha elektarooniga ah.
waxaa la sheegay in 2 nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Bodak iyo Faysal Olu ay ahaayeen wejiga hore ee hawshan, kuwaas oo iyaga la doonaya inay hawsha qabtaan waxna loo ekaysiiyey sida shabakad ganacsato ah. laakiin dhab ahaantii shaqadoodu waxay ahayd inay maareeyaan shixnadaha iyo qariiradaha sahayda oo ka soo baxaya ama gelaya dalka Turkiga. sirdoonka Turkiga waxay sheegeen inay qabteen shixnado dhowr ah oo lagu dhex qariyay qalabkan, taasi oo horseeday in la burburiyo shabakadii qarsooneed ee hawshaani waday. dhacdadan ayaa mar kale waxay muujisay in dagaalka casriga uusan ku koobnayn gantaallo iyo diyaarado dagaal oo keliya. mararka qaarkiina dagaalku waxa uu ku qarsoon yahay qalabka aad jeebka ku sidato ama aaladda aad hadda daawanayso, lagana yaabo inaad kala socoto macluumaadka ama wararka. si kastaba haatee, su'aal muhiim ah ayaa weli taagan. ma ahay tani dharbaaxo weyn oo ku dhacday sirdoonka tiknoolajiyadda Israa'iil, mise waa hal dhacdo oo keliya oo dagaalka qarsoon weli waa uu soconaya? aragtidaada nala wada qaybta aragtida. hana hilmaamin inaad ku soo biirto kanaalkeenna si aad u hesho wararka iyo falanqaynta cusub ee ku saabsan arrimaha gobolka iyo dunida.